waa tahay daawadayaal maanta waxaanu taagannahay deegaanka Soweto ee duleedka magaalada Johannesburg oo bishii aynu soo dhaafnay ay ka dhaceen rabshado lagu boobay Soomaalida ku nool dalkan Koonfur Afrika iyo guud ahaan ajaanibta halkani deganba dukaanka rabshaduhu ay ka dhaceen waxa ay ka bilowdeen rabshada markii hore isla markaana ay ka dhacday toogashada loo geystay wiilka yar ee South Afrikaanka ah ee ka caroodeen dadka South Afrikaanka ah waxa uu inaga adan yahay qaybtan midig iminka meesha aanu taagannahay waa community hallka dadka deegaanka ay halkan ku leeyihiin waxa lagu magacaabaa xaafadan gaar ahaan Snake Bag sida magaca ku xusan markan waxa garabkayga taagan gudoomiyaha jaaliyada Somali Community Board mudane Amir Sheikh Amir bal waxaad sharaxaad inaga siisaa barnaamijka maanta halkan ka dhacay iyo ujeedada uu soo qaban qaabisay Abdullahi Amiin qorshe waad mahadsantahay sida aad u sheegtay 19 bishii January ayay ahayd markii dukaankan Rason goobtiisa joogno oo muwaadiniin Soomaali lagu soo weeraray dabadeedna oo ku dhintay wiilka yara ee 14 ee miidiyaha caalamka soo jiitay sababna oo ahaa rabshooyinka baaxadda weyna ee Soweto ka dhacay usbuucyada la soo dhaafay ama andhaha bishii la soo dhaafay waxaan ku mashquulsanayn sidii dadkii la soo barakiciyay aan dib ugu celin lahayn goobahooda alxamdulillah waana ku guuleysanay inay dib u noqdaan intooda badan kulankan maantana wuxuu ahaa sidii bulshada iyo ganacsatada Soomaaliyeed ama Afrikaankaba ay isku dhaxgali lahaayeen alxamdulillah gabagabadii ayaanu maraynaa wuxuuna noogu soo dhamaaday si khayr leh waa tahay marka programkan maanta dhacay maaragta isdhexgalka bulshooyinka ah yaa soo qaban qaabay oo maaragta qaban qaabadiisa lahaa barnaamijkan wuxuu ka imaaday 23 waxaan ugu soo booqday magaalada Mayfair ee gobernatoraha ama premierka Gauteng David Makura shirka markuu dhamaadana waxaan ka wada hadalnay si wada jir ah in dadka loo celiyo ka celitaankoodana la bilaabo barnaamijyo isfahan lagu abuurayo labada bulsho dhexdooda waxa si wada jir u soo qaban qaabay xafiiska premierka ama gobernatoraha xafiiska mayorka Johannesburg Backstow iyo wasiir goboleedka amniga iyo xafiiska hidaha iyo dhaqanka waxa kale oo jiro in anagu jaaliyada Soomaalida ama masalayna jaaliyadaha kale iyo hadii ay noqoto maaragtay ururo kale oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada waa tahay waxa jirta in ganacsatada deegaankan ee u dhashay South Afrikaanka ah warar ay soo saareen oo ay ku sheegeen in dadka ajaanibta aysan doonayn ganacsigoodu ay caqabad ku yihiin arrimo noocaas waxa jira isqabsi kulamo badan oo la wada galayna waxay ku dhamaadeen fashil marka isleedahay arrintan maanta halkan ka dhacday oo guud ahaan bulshada ay ka soo qayb gashay wax bay ka bedeli kartaa arrintan halkan ka dhacday Abdallah wax badan ayay ka bedeli sababta dadka dibka wada waa dad loolan kula jira Soomaalida ama u arkay lid inay yihiin ganacsigooda dadka aan maanta aan maaragtay bulshadan aan kasbanayno waa bulshada naga adeegato waa bulshada danyarta oo dukaamada ku dhaxleenay ma filayo nin siyaasi ama nin ganacsado oo loolan Soomaali kula jiro inuu xalka imaanayo anagu waxaanu doonaynaa dan jaaliyadana waa inaan isfahan u dhaxmaro dadka aan la noolnahay ee Koonfur Afrikaanka iyo bulshadeena ganacsatadeena Soomaali wadna u jeedaa maanta dad taqriiban kun ka badan ayaa ka soo qayb galay hadaan ridahooda ama raali gelintooda helnane waxaan filayaa barnaamijkan inaan ka gudbi doono Snake Bag u gudbi doono qaybaha kale ee Soweto oo dibka ka jiro haduu alla nala garab galo anagoo la wada shaqaynayno saddexda qaybood ee dawladda ka koobantay inaan gobolada kala gaari doono waa tahay waxa jira arrimo kale oo ayaduna dhaliila oo loo soo jeediyo dadka Soomaalida ganacsiga halkan ku leh oo ay community aysan la shaqeynin ganacsatada aysan wada shaqeynin kala dhaxaynin kulamada deegaankan ay yeeshaan dadka deegaanka iyo ganacsatada ay yeeshaan aysan ka soo qayb galin arrimo noocaas ay ku andacoonayaan arrimahaasi maxaad ka leedahay hadda la goobtan aan maanta joogno Snake Bag waxaan u magacaabnay saddexdan wakiilna waxay kala matalaan jaaliyada Soomaaliyeed ama ganacsatada Soomaaliyeed Itoobiyaanka iyo Bangladesh waxaan doonayno ama aan u magacaabnana waxay tahay in xiriir waara ay la yeeshaan hadii uu noqdo kansalaha ama duqa magaalada ama hadii uu noqdo booliska ama hadii uu noqdo axsaabta ka jira dalka sabab haddaan Soomaalidu dib ugu noqono waxaa sababaya inta badan diinteena iyo dhaqankeena mar walba ka soo horjeedo waxaan u nimid bulsho masiixiyiin ah waxaan u nimid bulsho luqadda ay ku hadashaan ku hadlay taasna sabab waxay u noqotay muwaadinka Soomaaliga in ganacsigiisa uu soo dhaafin laakiin waxaanu doonaynaa insha Allah barnaamijyadan iyo barnaamijyo kale oo badan inaan taasi wax badan ka bedelno waa tahay ugu dambeyn dabcan wali waxa jira ganacsato aan ku soo laaban deegaankan waa tahay ugu dambeyn waxa jira wali ganacsato aan ku soo laaban halkan oo qaarkood ganacsigooda aan wali dib u furin marka maxaad fariin oo aad u jeedin lahayd bulshada dabti Snake Bag ama Soweto 95% dadku dib ay u soo laabteen way jiraan dukaamo
ay dadka ay ka cabsi awgeed ay Soomaalida ama dadka ganacsatada laajiinta ay u diideen taasna waxaa arrin la xiriirta amniga waayo niman waxaa jiray lid ku ah Soomaalida ama ganacsatada laajiinta taana waanu ka shaqaynaynaa annagoo kaashanayna maaragtay dawladda hoose iyo wasaaradda amniga ee gobolka insha Allah wixii caqabad nooca jira waxaan doonaynaa inaan wax ka qabano laakiin waxaan ku sheegay tahay in 95% ka badan dadkii ka barakacay Soweto ay dib u soo laabteen goobooda inay furan yihiin waa tahay aad baad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha jaaliyadda Somali Community Board Caamir Sheekh oo wareysi gaar ah siinay barnaamijka bandhiga TV-ga qaranka Soomaaliya xarunta ku sugannahay waa deegaanka Soweto oo maanta ay ka dhacayaan barnaamij isdhexgal ah oo loogu talagalay bulshooyinka ajaanibta ah iyo dadka deegaankan in maaragta la isku soo jiido wada shaqeyn dhexmarta aad baad u mahadsantahay dabcan dhinacaas hadda ka bilaabo waa Boosiye Xasan Cabdulle Fihana ku magac dheer waxa ku xiga Daawud Cabdi Cabdulle Daawud Daacad oo inta badan maaragta aad ku taqaanaan heesaha dambe xilliyadan la soo qaaday labadiin waxaad ka qayb gasheen barnaamijka maanta halka lagu qabtay deegaanka Soweto dabcan waxa ka yimaadeen dhul aad u dheer oo Kipton ah bal ka warrama dareenkiina barnaamijka maanta ka qayb gasheen iyo sida u aragtaan ugu horreyn Daawud ku hormaro marka hore waxa aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka imaado Kipton aan u soo aado barnaamij loogu talagalay barordiiq wiil Soomaaliya ku dileen gobolka Soweto waxa horta aad iyo aad ugu faraxsanahay anigoo matalaya qaranka Soomaaliya una matalaya dhanka fanka maanta barnaamijka aan ka qayb galay bulshada sidaan u dhax galay iyo sida isku fahmin wax aan aad iyo aad ugu faraxsanahay aan hore u arag waxaana muhiim qof kasta oo Soomaaliya inuu meesha uu joogo bulshadiisa dhax galo saas darteed ayaa anaga safarka u soo galnay waana ku faraxsanahay barnaamijkan maanta aad iyo aad loogu soo dhaweeyay wata Fihana dabcan waxaa tahay xidigar reer South Africa aadkii u jecel yihiin guud ahaan bulshada Soomaaliyeed bal dareenkaaga ka waran maadaama Soweto joogta waxa ka dhacay boob bishii la soo dhaafay Soomaali badan baa lagu boobo maanta waa joogtaa laakiin bal ka waran dareenkaaga aad iyo aad ayaan u faraxsanahay mana isdhehaynin Soweto ay imaanay because wax badan la iga sheekeyn jiray Soweto inaan tago lot of times waa rabay maanta anoo ka soo qayb galay barordiiqda loo dhigay wiilkii lagu dilay meeshan I'm so happy iyo sida noo soo dhaweeyeen ayagoo luuqadeena fahmeenin aad iyo aad ugu faraxsanahay waa tahay Daawud meeshan deegaan khatara oo dabcan sida la sheego deegaan ka buuxda dadka lagu dilo waa sida la sheego ganacsatada lagu boobaa marka soo galayso wax badan baa laga sheekay dabcan sidee dareenkaagu ahaa marka saakay ka soo dhaqaaqaysay Mayfair una soo socota halkan wallahi saakay dareenkayga aad iyo aad u liitay because waxaan ka shakisnaa meesha loo socdo sidii u taalo iyo meesha lagu dhaaf bandhig baa lagu qabanaa waa meel hooda oo duuro laga boqo saasay taan horta Soomaali baa ku nool oo lagu boobay hadda ka hor wiil ku dileen Soomaaliyeed laakiin markaan arkay bulshada aan dhex imaaday aan ka dhaxaysnay luuqadeena ayagu fahmeenin noo sacabtumeen waxaan aad farxad aan filinay soo gashay maadaama foo aan cabsanay gaariga xataa inaan dhex uga digto aadama laakiin hadda just happy aan ku ahay waana jeclahay qof walba Soomaaliyeed waxaan ku baraarujinaa inuu bulshadiisa soo dhex galo South Africa waa dad jecel markii laga reebo dadka qaar meel kasta tuuga ka jirta wadan kasta tuuga leena ma jirto wadan kasta dhibaato ka jiro ma jirto ilaahay horta nagu nabadgel wadanka aan joogno reer South African waa u hambalyeynana Soomaaliyana FIFA wata abba uma santa Daawud iyo Fihana oo ka yimid magaalada Kipton ay ahayn dabcan waxa garabkayga markaan taagan gabar kamid ah gabdhaha Soomaalida ee magaalada Johannesburg magacaaga kore ayaan wata ayaan bal ka waran dareenkaaga maanta halkan waxa u soo aaday inaad ka qayb qaadato bandhigan hidaha iyo dhaqanka oo loogu talagalay dadka ajaanibta ah iyo Soomaalida halkan joogta raadayda dadka South Africaanka ka waran dareenkaaga ما شاء الله عادي أنا وفرح سنة هاي أو ساقبتين كأنت ساقب قلي ما شاء الله تبدأنا ونسودوين قاسهان سد المها أركتين ونص أرضايان on أدنى نوع قيمين يعني ونحشمين يعني إنك استوى ويلش يعني Somali ذا مش الوجود جلا always on عادي أنا وفرح سنة Soweto hadda meesha aan ku sugannahay isniib bagalo dhibaato fara badan ayaa ka dhacay qaabkii dadka shacbiga Soomaaliyeed business ku haysto qaabkii dadkan aan ku dhaxnoolnahay isku fahmi lahaayeen iyo qaabkii loo dhaqmi lahaa barnaamijkaas ayaa meeshan loo qabaqabiyay annagana waxaan ugu kaleesinaa imaanay maadaama dhalinyarada Soomaaliyeed aan nahay sidii aan ugu qayb qaadan lahayn shacbigeena iyo ummadeena Soomaaliyeed ku dhaqan dalka Koonfur Afrika qaas ahaan guud ahaan South Africa qaabkii aan u wacyi gelin lahayn qaabka aan u dhaqmi lahayn dadka ku dhaqan aan ku dhaxnoolnahay South Africa dadka madowga aan ku dhaxnoolnahay dhibaatooyin ugu hayaan qaabkii aan ula macaamil lahayn kan dawladeed iyo kan community ahaan qaas ahaan barnaamijka ayaa meesha u imaanay
iskugu imaaday all Africa dhammaan sidii England Africa oo dhan sidoo kale waxaan halkan u taaganahay dadweynaha South Africa ku nool Soomaalida khaasatan iyo dadka South Africaanka inay isdhexgalaan in noqdaan dad midnimo iyo isku dhexjid iskula socda waxa aydan halkaan oo kale u taaganaa u mideynayna Africa inay tahay hal ay kale inta ay dhaqanka Soomaalida ee culture-ka lagu soo bandhigay qaaradda Africa oo dalka South Africa waxa soo bandhignay hidii dhaqanka Soomaalida iyo cunooyinka iyo culture-ka iyo waa tahay sidoo kale markan waxa garabkayga taagan guddigiis ka soo shaqeeyay cunooyinka Soomaalida hidaha ay dhaqanka u lahayd maanta halkaan lagu soo bandhigay isla markaan uu hogaaminayay injineerka Ibrahim Qaxwo Ibrahim maanta waxa soo bandhigteen sidii ku yaqaan qayb wax la ka qaadataan barnaamijyada hidaha ay dhaqanka lagu qabto dalkan Koonfur Afrika isla markaan guulo u soo yeeshay Soomaalida barnaamijkan maanta halka Soweto lagu qabtay marka aad imaanayseen dareenkiina sidoo ah la dareenkeena anagu South Africa markay hidii dhaqan la yiraahdo dhowr meel aan ka qayb galnay wiligeena anagu waxaan ka naystaa waana ogyihiin markaan meesha soo galno waa la buuqa Soomaalida hidaha dhaqanka loo jecel yahay sida UNJJ iyo meelaha Afrikaanka oo dhan isugu imaado tanna waxay isdhexgalka qaxootiga iyo dadka Soweto ama dadka South Africaanka marka aadan ugu gulsan aadan ugu farxsan dadka inaan isla ciyaarno in isdhexgalno wax walba aan sheer gareyna aan ku talagalnay inta barnaamijka ku dhex jirteen dadkii idin imaanay kale qaybta cunooyinka Soomaalida ay qaabilsanaadeen ka waran dareenkooda sidoo ahaa sidee cunooyinka u arkay aad iyo aad oo dhacunto sida coodka sida canjeerada sida ay malawaxa bataatida iyo bataat macaanka waxa dhan aad oo reeqeen waa naga dhameysteen cunto kala taali way diideen inay qaataan soo arkaysa zaxma ee meesha aad iyo aad meesha waxay ka dhigaan jaam wata marka laga soo tago barnaamijkaas Soweto waxay ka mid tahay deegaanada ugu dhibka badan oo Soomaalida lagu dhibaateeyo barnaamijka maanta halkan ku qabateen maxaad isleedahay uu ka bedeli karaa arrimaha halkan ka jira ganacsatada Soomaalida halkan ku nool xasnada ku bedeli karaa ma xogaa inay wax iska bedelaan jecelna aad ay noo soo dhaweeyeen maanan u maleynaa inaan Afrikaan wadanahay inaan isku cuntanahay inaan isku dhownahay maanan u maleynaa Indian idin haysanay hadda waan ogaanayna dad Afrikaantiin dad badan naga raali galiyay sida koofidaha oo ku qoran macallaa in Soomaaliya fanaanada qaarayna qaarta oo leegis hadda tan waxaan ku galaanay waxaan ka bariyay in aan ku galo kaamirada ka bacdi waan ku siibaanay wala qaadanaa kadib aad u maasanta Ibrahim iyo guddigiisa kala shaqeeya Soomaaliyeed ku nool magaalada la dhaho Johannesburg gaar ahaan Nefea 9 Avenue meeshaan waxaa u imaanay maadaama lagu dilay cunug yariis wadanka dadkii lahaane ee ku laayeen dad badan wiilkaas dilkiisa runaantii u imaanay waa tahay marka maxaa halkan ku soo bandhigaysaan maadaama tiin gabdhaha Soomaaliyeed halkan u yimid barnaamijkan walaahi waxa ku soo bandhigeynaa inaan anagii South Africaanka heshiis noqono laakiin maadaama cunug yar laga dilay leeyahay cunug yariis laga dilay anagana dukaamooyinna lagu dhacay oo raaf badan lagu sameeyay marka waxaan leeyahay heshiis